kulan wacan oo wanaagsan daawade waxaad ku soo dhawaataa barnaamijka la yaabka dunida Jowhar TV magaalada Muqdisho qodobada la yaabka leh oo aad la yaabi doontaan waxaa ka mid noqon doono daawade waxaad ka taqaanaa naagtii ugu horeysay oo si online ah loo umuliyay haddaba sidee suurto gashay barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale gabar magac weyn dunida ku leh oo hindisiyadeeda sabab u noqotay in xabsiga loo taxaabo waa qayb ka mid ah barnaamijka la yaabka dunida ee Jowhar TV mid ka mid ah shaqaalaha qaabilsan boorso qaadista oo ka howlgala madaar Hindiya ku yaalo ayaa si kadis ah isku arkay isagoo joogo Abu Dhabi qodobadaas iyo qodobo kale intood ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka daawade anigu waxaan ahay Maxamed Muxudiin Abubakar Maxamed Tacab mar kale iyo barnaamijka la yaabka dunida Jowhar TV ugu horeysay ebed oo si online ah loo umuliyay waa tahay mid ka mid ah shaqaalaha qaabilsan boorso qaadista oo ka howlgala madaar Hindiya ku yaalo ayaa si kadis ah isku arkay isagoo joogo Abu Dhabi waa arrin cajiib ah isagoo aan xitaa dareemin safarkiisa ninkan Hindiyaanka ah oo si kadis ah ugu dhex hurday qol shixnadaha mid ka mid ah ee diyaaradda xilli uu qaabilsanaa inuu ku xidhayo boorsooyinka qolka shixnadaha ee diyaaradda si kadis ayuuna ugu dhex hurday qolka waxa uuna is arkay isagoo joogo dalka Imaaraadka lagu magacaabo Maliza oo 24 sano jir ah isla markaana caan ah ayaa xabsiga la dhigay kadib markii ay si ula kac ah ugu hindistay wajiga nin sharci yaqaan ah taasi oo keentay in wajiga ninkaasi sharci yaqaanka ahaa uu ku firdhoodo diifkeeda waa arrin la yaab leh waxaana la dhigay saldhig wiil country Khartoum oo ah xabsiga la dhigo dadka edeb darrada sameeya kaasi oo sheekadoodu noqotay arrin lagu hadalhaynta badan yahay warbaahinta caalamka halka ayaa ku soo gabagabeynaa barnaamijka la yaabka dunida Jowhar TV magaalada Muqdisho ina like iyo follow aad tiraahdo ama aad subscribe saarato barta YouTube-ka aynu ku leenahay Jowhar TV